aad iyo aad baan uga mahadnaqayaa wasaaradda howlaha guud iyo guriyiinta iyo horumarinta dalka dhulka inay soo qabanqaabisay mashruucan ama projectkan lagu diiwaan gelinayo hantida guud ee qaranka. waxaan dareemayaa wasaaraddu xaaladda ay ku shaqaysa oo dhaqaale ahaan aad iyo aada u kooban oo danta dalkeenu tidhi. waxaan aada u dareemayaa aqoon-yahanka intaa leeg ee injineerada ah in aanay haynin oo aanay dowladdu dhaqaalihii ku filan ay ku shaqayn lahaayeen inaanaan itaalkeeda haynin. waxaan uga mahadnaqayaa injineerada iyo aqoon-yahanada iyo shaqaalaha hoose ka shaqeeya wasaaradaha oo dhan xukuumadda iyo gaar ahaan tan howlaha guudaha howl badan haysa inay boqolkiiba boqol waxa ay ku shaqeynayo ee voluntary ee aanay nin aqoon-yahana oo jaamiciya iyo standard dhaqaalo oo lagu xisaabtamo dowladda aanu jirin. wadannimada iyo tabarucnimada aad samaynaysaana waa idinka mahadnaqaynaa. waayo dee fikirkeenu waxa weeyi haddii innaga dhaqaale nagu yaraaday waa inanu dalka u dhisnaa carruurteena si u dhaqaale ugu hagaago. dal waloo hore u marayba dad buu la kulmay dalku markuu dhismaayey oo dhibtiisa qaatay deetana waxaa u ahayay dadkii ka dambeeyey. dalalka maanta lama jeertaa ka mid a dee maraykankan xoogga weyn ingiriisku muu ahaa mustacmalad yar sidii aanu mustacmaradu ahayn oo kale deetana iyagoon waxba haynin oo cashuur yaroo shaaha isku dilay ay dowladnimo qaateen maantana halkaasay mareen. china ka mid a oo dad badan sooba gaari dee china oo aada loogu baktiyayo shalay ahayd 30 sano ka hor. dalal kale oo tusaalaha ka mid a ethoobiya agteena ka mid oo 20 sannadood ee iyagana EBRDB qabstay inaguna aanu xoroonay mar wada xoroonay maanta dhaqaaladu kuwa afka ugu dheereeyay weeyi. qof waliba inuu yaqaano markuu Ethiopia tago markii 20 sano ka hor halku dhaqaaladu marayay guryahay galayeen xafiisyada ku shaqaynayeen dareyskooda. marka kalsoonida aad aaminta dalka inaad u shaqayso waa la qurxin karaa foolxumada maanta taagan iyo dhaqaale darrada. taa waa idinka mahadnaqayaa inaynu qaadano ra'yiga aanu inagu dalka dhisno ubadkeenu ha waa iska dhisan. marka waa idinka mahadnaqayaa dhaqaalaha kooban ku shaqaynaysaan wixii suurtagalana waa idinla garab gelayna. hawshaa qabanaysaan waa hantidii qaranka. qofka dhistanaya guri yar inta doonaya la kaado 30 mitir 50 mitir 100 mitir mulkiyad buu samaystaa. dee inaga waxaan waajiba qaranku wuxuu leeyahay inaan mulkiyad samayno. waa aragnimada waxayna tustay marar badan in loo haysto oo la yidhaahdo waxa dowladdu waa bilaash waa wax dowladda cidi kama damqato ama lama ilaaliyo. waxaanu diiwaanka loogu horreeyey gaadiidka oo ilaa maanta sidii la doonayo soo xirayntiisii iyo raadintiisii aanay u dhammayn. laakiin waxaynu haynaa wixii gaadiid qarankani lahaa ilaa inta dalka dib loo soo galay tiradoodii qacaadii saal ku dambeysay xitaa waa ogaag raymka kii xitaa qacaadi saal kii meel yaalana waa la soo qaadaya waa la raadinaya. laakiin waxaynu haynaa qaranku imsu gaadiid lahaa taasaa la xasiliyey. see loo maamulaya see loo wanaajinayana waa waddo kaloo la socdo. waxaynu u baahannahay inaynu nala qaranku muxuu hantilayay. horta qaranku dalka o dhan daysaa ka mas-uula dastuurkaa taadhig dowladdaa dalka ka mas-uula inaa nidaamsaa u baahantahy intee la beerayaa intee la dhisayaa intee la kaydinayaa inaan hawshaa qaranka ee dhulka u gaadha wasaaradda loo abuuro oo dadkeena imika ku cusub dadku laba waxoon iswaafaqayn bay naga doonayaan. wax noo nidaami oo wax qurxi waxna anigaaloo amarka qaadan maayo oo buurtaa anigaale inaan loo soo dhawaan oo kayntaa anigaalo waan gubayaa. markaa tidhaa ka doonaya waa lay wararaya dowladdii baa ay dhibaysa waa laba aan islahayn moogta wanaag lagu naga doonaya dalka in la wanaajiyo qorshii loo dhigayana weli ma ogola. sabab dadka imika nool da-da uu yahayba waa traumatized. dadka ilaa 40 sano u dambeeyey Somaliland iyo Soomaaliya iyo geeska afka oran dagaalay iyo dowladda iyo waxbaas wada jeejiray. markaa dadku waa individual waa qoyskiiba hoosta dabad geliyay ma aaminsana wax la wada leeyahay. dadka waa intaa la bara dalka waa la wada leeyahay sidana waa loo nidaaminaya. ra'yi kala jira dowladdu way ku cadaadinaysaa iska ilaali. imika nin baa degan meel waxba kuma hayo meel yar beer yar ku leeyahay ama xoolo ku raacaa waa la tegaya waxaa leeyahay meeshan waxaan doonayaa petrol ka qodo sidaa la isku dhufanaya qori buu soo qaadanaya. maxaa laga rabaa meesheeda war meeshan adna gaajaa kugu dishay kii ka horeyna gaajaa ku dishay inaan hore u marayno oo dhirtii hadday naga dhamaatay daaqi oo roobi waa inaanu gudaheeda qodnayn wax ka soo haran doonaynaaye adna ma qodi kartaa aanu isku tiraan wada qodno. dhibaato weyn baa ka taagan waa maqashaa maalin kasta marka meel qaadaya ciidankeena
dadka hadla shaqaysanaysa adduunka ee dalka maal gelinaya dee xoolihiisa ku bixin maayo meel ciidan ku ilaalinayo oo maalba xabad loo soo baxayo ninkan kula dagaalamaya waxba iskama karanayo waa ka aqoon waa ka garasho ama nin kaloo meel fog jooga oo doonaya inuu si shaksiyan u faa'iido oo uu nin weyn u haysto ama uu dhegeysanayo ayaa le maya diid ilaa kaas wuxuu doonaya loo helo oo yana dee qalada marka waxaynu marnaa marxalad aada u adag oo dadkii dantoodii guud iyaga oo aan uga barheerayn aynaan isla fahmin marka wax la qabanaya waxan waysan wacyigelin badan iyo wax isu sheegid badan waana marxalad la mara cid walba way soo martaa marxaladda marka waxaan hawsha markaa gashaan dhibaatooyin badan baad ka hor imanaya oo xitaa aflagaada leh oo gacan qaad leh oo waxaydaan geyn leh oo buuq leh laakiin waxa weeye dulqaad iyo dadka inaynu wacyigelin badan waxaan doonayna waa kaa waa waxaa cad aynu hawshaa qaban wasaarado badan baa ayaad isla shaqayn doontaan wasaaradda ugu culus la shaqaynaysaa waxay noqonaysaa wasaaradda arrimaha gudaha wasaaradda arrimaha guduhu waa wasaaradda ugu ballaaran iyadaana haysa maamulka degmooyinka iyo gobollada gobolkii markaad ka baxdaanaad halka u tagtaa waxaad udegeysaan baro saabkii oo calanka u taagay oo dowladdu matala waxyaalaha marxalada marna iska hor imanaya waxaa kamid a baro saabkii calankaa u taagan haddana waxaad u gudbaysaa meeyar la doortay oo immunity leh oo sharciga xeerkii 3 samaynay immunity buu leeyahay wuxuu leeyahay awood fulineed wuxuu leeyahay awood sharci dirsheed meeyarkina siday isula jaan qabsanayaan saddexaa jaran kala duwan dowladdii dhexe golihii wasiiradu amarkii soo fulay baro saabkii ugu yimid haddana wuxuu yimid duqii magaalada iyo deegaankii oo la doortay intaasi inay si aan xanaf ahayn u wada shaqayso oo isla fahamtaa waxay u baahan tahay hogaamin iyo isfahm iyo usabir iyo waxsheeg dowladaha hooseenu dooranay decentralization dadka in bara la geeyo la daadajiyo adeegooda biyaha laydhka xashiishkoo laga guro nidaam magaalada bilicdooda la hagaajiyo waa waxaan u daadishanay dowladaha hoose inay qabtaan dowladaha hoose way dadaalaan laakiin mararka qaarkood awoodda tamartoodiiyo waxaa kala badan dee wax laga doonaya expectationka waxa laga yaaba dhaqaalihii waxaa laga wada doonayay iskuuladii yarar iskuuladii hoose inuu bixiyo dhaqaalahoodii inuu leyrkii bixiyo inuu biyihii bixiyo inuu msajkii caafimaadka bixiyo inuu wadooyinkii bixiyo inuu xashiishkii guro inuu boliiska waa kharash badan waxaa laga yaabaa meeshii uu maamulayana aanay kasoo wada bixin oona awooddaaba lahayn oo xaqiiqa marka misaanadooda la eego deetna canaan baa ku imanaysa iyo dhaliil inaguna baryaha dee dadku waxay ku wanaagsan dhaliisha ayaa aad iyo aad loo yaqaana mogti hadduu qofka saa wax toostoosi waxoogay gulwada iyo nagadaa iyo waxaanu jecelahay xagga kulaylka inaynu xagga shan wax wada shido marka waxay isu tegaysaan heerarkaasaa maraysa marka dowladii hoose waxay ahayd fursad fiican iyo siyaasad fiican inaynu maamulka daadishino waanay dadaaleen taagoodii laakiin waxaa ka xoog batay waxa laga doonayo hadday dhaliilo keenaanna waa bini aadmi iyo institution dhiso dhaliil wuu yeelanaya laakiin waxa mashkilada waxaa la sheegaa dhaliishooda intay qabtaan cidma sheegto meel walbana waa caynkaa idinka waa isu tegi doontaan waxaa iman doonaa dood badan baad dhex mari doonta waayo isagu wuxuu qabaa inuu dee deegaankii wixii maamulo dantii guud wuu ogol yahay laakiin hore laisuma weydiin dee maanta ugu horeysa markaas waa wax tiraa baadi kugu raagtay iyo daadaa la moodaa inaad leedahay haddii neef baadi geelaag soo galo oo 3 day-ood kuu dhalo oo kiilaha sumadii ku garto dood baa ka dhacda wasaaradda arrimaha gudaha waxaan ka filayaa inaad si wacan arrintaa uga wada shaqayn doontaan oo iskaashile iyo kuwa kaleba aad iyo aad baan idinku mahadnaqaynaa waa hawl bilowo wanaagsan hawsha loo diray wasaaraddani waa hawl cusub awlana waxayd gaadiidka iyo guriyeynta iyo jidadka laakiin iminka waxaan uga saaray wasaaradda horumarinta dhulka waa wixii ugu weynaa dowladdu qabanaysay ee dastuurku siiyey dhulka waxaa looga jeedaa qaranka oo dhan bad iyo beriba in la qorsheeyo dhulka imika in baynu isticmaalaynaa sidaynu u isticmaalaynaa intee daaqa intee kayda intaynu macdan ka qodnaa intaynu xashiishka ku basrinaa intaynu jeed ka dhiganaa waa in la helaa dhulkiisaynu isticmaalayna haddii kale dee dhulkii waynu baabiinayna
dowladaha baahan oo dhan dadka dhaqaalaha yar oo dhan dalkooda way baabiyaa dhirta way gubaa meel walba qashin bay ku daadiyaan wasaqooga ku badiyaan faqrigaas kale marka inagu faqriga waxaanu ka hortegaynaa aqoontiina ku saxnaa haddii la yidhahdo aad iyo aad waxaan dirasheenayaa guul iyo shaqo wanaagsan waa mahadsantii